filimkan oo loogu magac daray qurba joogta iyo weliba qalbi dhoof raba ayaa xalay lagu daawaday mid ka mid ah shaneemooyinka caanka ah ee magaalada Melbourne iyadoo aan horey loogu dhigin filimaan Hollywood ahayn. jilayaasha filimka ayaa intooda badan ahaayeen Soomaali iyadoo ujeedka filimkan uu ahaa mid lagu iftiiminayo dhibaatooyinka kala haysta qurba joogta iyo weliba dadka dhoofka raba ee ku nool dunida saddexaad. waxaan la kulmay jilayaasha filimka oo ay ii sheegeen inuu ahaa filimkii ugu horeeyay ee ay ka qayb qaateen jilistiisa. maadaama filimkan uu xambaarsanaa qiso runtii inta badan ay ku dhacdo qurba joogta Soomaalida dabcan waxaan jeclahay markana inaan la kulmo mid ka mid ah jilayaasha filimka oo la yiraahdo Najma runtii filimka qayb ayaad ka ahayd waxaad iga warantaa maxaa kaaga baxay filimka maxaa la jiray aktaryaasha sida u soo caan baxeen iyo qisada ma aragtay ka dhacaysa Yurub oo maanta aan big screen soo saarnay ayaa maxaa lahaa highlight-kayga waa intaas community-ga aan fahansiinaynay inay saasoo kale u dhacdo oo kadib la xallin karo arrinta oo ay jirto community-ga ogeysiisay naga ahayd inkastoo dadkii daawaday ay sheegeen inay aad ula dhaceen qisada filimka uu xambaarsanaa filimku wuxuu mid aad iyo aad u qurux badan buu ahaa waxaan jibinay record dad Soomaali aad hore u jibin oo ahaa in filim Soomaali lagu mataawan karo Shaleemo aad baan ugu faraxsanahay in maanta filim Soomaali lagu daawanayo Shaleemooyinka weyn adduunka waxa weeye filim aad iyo aad u qurux badan buu ahaa qisadiisuna ah qisada jeer Soomaalida ku dhacda filimkan nuxurkiisu wuxuu noqonayaa qofkii dhibaato qof ku sameeyay isagana waa ku soo noqonaysaa marka dadka Soomaaliyeed ha ka maaragtay tusaalaha u noqdo waxaad ka mid ah dadka filimka xoogaa wax ka jilay dabcan gabadhii ayuutada laga soo qaday ka waran filimka maxaa kaaga baxay ما شاء الله ورقة مدعين وفريق يقول إسرائيل لقى سمايو عاد بنقول فرح سنة هاي وحنا قاعد سنة دليرة إن النص ودان أنا قلنا هكبدي ديار بلدنا We very happy yeah وكفر أحسنها موفيجا first time in Australia and thanks Eid فيلم ما شاء الله هو فعناي فيلم لو بحناي وهاي أنا لكينه ما شاء الله وحنا we need more movies أو بحناي for the community go صوبتي بسم الله الرحمن الرحيم والله فيلم عجائب ولقينا فيلم داونين وما هين marka waa soo dhaweynayna filim fiican buu ahaa Saciid Wahane waxa uu kamid yahay aktarada filimka salbarkaana wuxuu ahaa qofkii fikradda ka soo maaxatay maskaxdiisa Saciid caawa dad aad u far badan ayaa filimka fiirsaday maxaa kaaga baxay markaad wallahi dadka aad iyo aad ay filimka u xiiseynayeen ilaa ay hadda su'aalaha la isweydiinayo waxa kamid ah filimkan dib loogu soo celin doonaa oo mar kale ma la dhigi doonaa inkasta oo aniga iyo dadka filimka ila dhigay oo aktarada ila dhigay aan go'aan ku gaarnay magaalo walba in hal habeen laga dhigo haddana markaan aragnay baahida ee dadku u qabaan filimka waxaan go'aansanay inaan mar kale ugu celino dabcan filimkanna waxa uu noqonayaa filimkii ugu horeeyay ee Soomaali ay ku dhigto shaneemooyinka Hollywood-ka ee lagu dhigo filmaanta Hollywood-ka kaliya ayaa waxa daawashadiisa ka qayb qaatay ku dhawaad 200 oo ruux dabcan taariikh ayuu ka galay qaaradan Australia waxaana la ii sheegay in filimkan loo wado qaaradaha kale sida waqooyiga Amerika iyo qaaradda Yurub oo dad aad u fara badan oo Soomaaliya ay ka dhur sugayaan magaca filimka uu xambaarsan yahay oo ah qurba joogta iyo waliba qalbi dhoof raba Brian Umar Baafe wararka Universal Melbourne Australia